السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنة الكمركة للسعودية وهذا أديادا وما سنتين ما أنت واجمع وأنا لباتنك بيش اللبادة فبراير سنة كلبادة وكن يلحيا لباتنك واجمعه وهريي بيش بركيسان رمضان. مقال كان وحن ربعنا إن ذي كل وذاقو محكمة السرع أمريكان كا أو ما أنت ديدي أنت بدن عن شوره ترام وكسر رجي ودمدا عالم ككونة المانتي شرع الدرو أو إن أودي سأيسان هين oo awoodda canshuur ku soo rogista wadamada caalamka ay Congress-ku ay iska leeyihiin. Haddaba imise garsoore ayaa ka soo horjeesatay taarifkii madaxweyne Trump, imise ayaa ogolaatay madaxweyne Trump oo ka hadlay arrintaasi isla markaana ku tilmaamay in sharaf darro ay tahay in maxkamadda sare ay go'aankaasi soo saarto canshuur kalena ku soo rogay haddana mar kale isagoo sharci kala adeegsanaya wadamada caalamka. Arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa iyo sidoo kale xildhibaanad Ilhaan Cumar iyo xildhibaanad kale oo magaceeda la yiraahdo Angie Craig oo bishii hore loo diiday inay galaan xarunta ciidamada ICE dadka marka ay xiraan ay geeyaan buildingka la yiraahdo Whipple Building oo maanta ay booqdeen. Haddaba maxay ku soo arkeen? Ilhaan Cumar ayaa arrimahaasi ka hadlaysa, sidoo kale waan idinla wadaagayaa. Madaxweyne Trump ayaa maanta si aad ah uga carooday go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee Mareykanka, taasi oo maxkamadda sare ay ku diiday ku dhawaad 70% canshuurihii madaxweyne Trump bishii Abriil oo labadii bishii Abriil ee sanadkii hore 2025 uu ku soo rogay wadamada caalamka. Madaxweyne Trump wuxuu yiri wadamadan intooda badan Mareykanka ayay ka faa'iideysan jireen oo canshuuro fara badan ayay ka qaadi jireen alaabta Mareykanku uu dhoofiyo, iyagana Mareykanka alaabta ay u soo dhoofinayaan canshuurba lagama qaadi jirin ama wax yar ayaa laga qaadi jiray. Marka wuxuu yiri si aan u cadaalad sameeyno inaguna waa inaan ku soo rognaa wadamadaasi inta canshuur ah oo iyagu ay nagu soo rogayaan. Haddaba arrintaasi waxay dhabar jab weyn ku noqotay inta badan wadamadii lagu soo rogay canshuurahaasi iyo waliba ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhaxdhaxaadka ah ee Mareykanka, maadaama lacagahan taarifka waxa laga qaadaa shirkadaha alaabta u soo dhoofiya Mareykanka. Shirkadihiina lacagta shacabkii Mareykanka ayay saarayeen, taasina waxay sababtay in sicir bararku uu aad u sareeyay labadii sano ee la soo dhaafay. Waxyaabaha daruuriga ah oo dadku ay iibsadaanna sida raashinka ay aad u sareysay, taasina marka waxay sababtay in qaar ka mid ah gobolada Mareykanka ay arrintaasi dacwad ka gudbiyaan, sidoo kalena ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhaxdhaxaadkana ay dacwadaasi gudbiyaan. wadamo sidoo kale caalamkana oo Mexico iyo Canada ay kamid yihiin dacwadahaasi ay gudbiyeen. Marka maxkamadihii hoose waxay ku tilmaameen sharci darro ilaa iyo maxkamadda sare ayaa la isla tagay. Marka Trump go'aankan waxa uu ahaa mid si weyn loo sugayay. Waxa sidoo kale ku xirnayd lacagtii $2,000 ahayd oo Trump uu yiri shacabka Mareykanka ayaan siinaya haddii maxkamadda sare ay ii xugmiso dhinacayga oo ay tiraahdo waa sharci lacagahan taarifka oo madaxweyne Trump uu soo rogay. Laakiin maadaama hadda maxkamaddii sare ay diiday, dowladda Mareykanku lacag 175 bilyan ka badan ayaa ka soo gashay alaabahaasi Mareykanka loo soo dhoofiyo. Hadda marka lacagahaasi maxaa laga yeelayaa? Inkastoo hadda maxkamadda sare aysan go'aan arrintaasi ka soo saarin, shirkadihi ayaa loo celinayaa. dowladdu maxay sameynaysaa? Marka lacagtii $2,000 ahayd oo Trump uu doonayay shacabka inuu siiyo meesha ay ka baxaysaa, maadaama lacagtaasi dowladda Mareykanka taarifkaasi ka soo gashay ee hadda sharci darro tahay. dowladda Mareykankana ay qasab ku noqonayso in ganacsatadii ay dib ugu celiso. Haddaba garsoorayaasha maxkamadda sare waa 9. 6 ka mid ah ayaa waxay sharci darro ku tilmaameen 70% lacagahaasi taarifka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay wadamada caalamka. garsoorayaashii maxay kale yihiin oo ka soo horjeestay arrintaasi oo sharci darro ku tilmaamay? waa gudoomiyaha maxkamadda sare ninka la yiraahdo John Roberts. waxaa sidoo kale ku jira 2 garsoore oo Trump uu magacaabay 4 sano oo hore uu madaxweynaha ahaa. kuwa ka soo horjeestay ayay ku jiraan. madaxweynuhuna maanta waxa uu yiri waa inay isceebaystaan, waan ka niyad jabsanahay yiri. waxaa ka mid ah Neil Gorsuch oo Trump uu magacaabay 4 sano oo hore madaxweynaha, iyo Amy Coney Barrett oo 2020 markii xilka uu ka sii degayay iyadana uu magacaabay. labaduba Trump waa ay ka soo horjeesteen. waxaa sidoo kale ku jira 3 garsoore ee muxaafadka, Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson oo madaxweyne Biden uu magacaabay oo gabadha kaliya ee madowga ah ay ku jirta 9 garsoore ee maxkamadda sare, iyo Elena Kagan. 6daasi garsoore ayaa diiday oo sharci darro ku tilmaamay taarifka madaxweyne Trump uu ku soo rogay. madaxweyne Trump awoodaha uu isticmaalay waxaa ka mid ah sharciga la yiraahdo Emergency Economic Powers Act oo 1970
2017 la sameeyey marka garsoorayaasha maxkamadda sare waxay yiraahdeen Trump awood uma lahan oo Congress-ka ayaa iskale awoodda canshuur ku soo rogista wadamada caalamka saddexda garsoore oo marka Trump ku taageeray canshuurahaasi waxay kala yihiin ninka isaguna Clarence Thomas Lira oo ninka madowga ah oo kaliya oo isaguna ku jira sagaalka garsoore ee maxkamadda sare Brett Kavanaugh isagana Trump ayaa magacaabay iyo Samuel Alito marka saddexdaasina waa ay ku taageereen Trump marka maadaama majority-gi 6 ay ka soo horjeesteen majority-ga ayaa la raacaya isla marka go'aanka maxkamadda uu soo baxay Trump waxa uu la shirayay gudoomiyaasha gobolada oo iyada nafteeda khilaaf weyn oo ka dhasho la leeyahay Trump kuwa Republicanka oo kaliya ayuu casuumay kuwa ay kamid yihiin midka Illinois kan Maryland kan New Jersey iyo sidoo kale kan Massachusetts waa uu ka tagay marka isagoo kulankii ku jira ayaa loo sheegay Trump waxa la leeyahay wajigiisa caraweyn ayaa markaas ka muuqatay markii kulankii uu soo dhamaadana shir jaraa'id ayuu qabtay Trump waxa uu sheegay inuu aad uga niyad jabsan yahay go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare madaxa meel ka koreyso la salaaxa ma lahan marka haddii maxkamadda sare ay diiday waa sidii loo diiday canshuurahaasi marka waxa uu sidoo kale sheegay in ay isceebeystaan ay yihiin garsoorayaasha go'aankan soo jeediyay isagoo ammaanay saddexda garsoore isaga taageertayna waa uu ammaanay haddaba Trump oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed for not having the courage to do what's right for our country. I'd like to thank and congratulate Justices Thomas, Alito, and Kavanaugh for their strength and wisdom and love of our country, which is right now very proud of those justices. When you read the dissenting opinions, there's no way that anyone can argue against them. There's no way. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. sidoo kale madaxweyne Trump isagoo sharci kale oo ku jira dastuurka oo adeegsanaya ayaa waxa uu sheegay in 100% canshuurada dheeraad uu ku soo rogayo wadamadii horay uu ugu soo rogay canshuurahaasi oo haddana 10kan ay ka sii sareyso marka waxa uu yiri wadamadaasi inta badan waxay ka faa'iideysanayeen wadankeena hadda intooda badan waa ay dabaaldegayaan laakiin waxaan idin xaqiijinayaa in dabaaldegaasi uusan sii socon doonin isagoo arrimahaasi ka hadlayana mar kale madaxweyne Trump oo 10% canshuuraha dheeraadka oo wadamada uu ku soo rogayna waxa uu yiri Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. dhinaca kale waxaan ognahay howlgalkii ciidamada ay ka wadeen gobolka Minnesota in inta badan ciidamadii hadda ay isaga baxeen waxa la leeyahay ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo 500 ayaa ku sugan marka ciidamada ICE marka ay dadka xiraan waxa ay geeyaan building dawladda federaalka dhisme ay leedahay oo la yiraahdo Webber Building oo Minneapolis ku yaala xildhibaano ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo iyagu dhinaca maadaama lacagaha ay Congress-ku ansixiyaan waxay dastuurku awood u siinaya in xilliga ay doonaan ay kormeeri karaan bishii la soo dhaafay xildhibaano ay kamid ahayd Ilhan Umar Angie Craig iyo Kelly Morrison ayaa loo diiday xaruntaasi inay galaan haddaba maanta ayaa loo ogolaaday waatii wasaaradda amniga gudaha amar soo saarto 7 maalmood ka hor waa inay noo soo sheegaan xildhibaanadu haddii ay doonayaan laakiin sida sharciga waxay tahay xilliga ay u baahdaan inay tagi karaan oo ay kormeeri karaan marka waxba halkaasi lagu qarinay Ilhan Umar iyo sidoo kale Angie Craig ayaa maanta loo ogolaaday in ay galaan laakiin maxay kala soo kulmeen xaruntaasi dadka lagu xirayay ka hor inta aan gobolada kale Texas iyo Louisiana aan loo kala qaadin oo sida ku meel gaarka ah loogu xiri jiray Ilhan Umar waxay tiri ugu dambeyntii horta isku dayo fara badan waa naloo ogolaaday inaan xarunta gudaha u galno meel kastana waa nala tusay laakiin waxa la yaab leh tiri hal qof oo meeshii ku xiran ma aanan ugu tagin oo aan la hadalno markaan weydiinana waxa naloo ku jawaabay 30 daqiiqo ka hor ayaa dadkii ugu dambeeyay halkan laga qaaday marka waa la faaruujiyay dhammaan xaruntaasi hal qof ma uusan ku xirnayn sidoo kalena waxa jirta in la nadiifiyay oo kaliin laga dhigay maadaama xildhibaanadan report ay gudbinayaan oo Congress-ka ay ku celinayaan marka waaba la sii nadiifiyay oo meesha waxay u ekeyd meel nadiif ah
hal qof oo ku xiranna ma aanan arkin. Ilhaan Cumar waxay tiri hadda isku celcelis ahaan 20 qof ayaa maalintii ciidamada ICE ay soo qabanayaan, sidaa darteed ilaa 500 oo askari ayaa weli ku sugan gobolka Minnesota oo ciidamada ICE ah. Marka waxaa la yaab lahayd in xaruntii dhan oo ICE marka dadka ay qabtaan ay ku xirayeen, in xildhibaanadii markii ay tageen lagu yiri hal qofba kuma xirna, waa tanaa bal arka dhammaan boqolalkii oo faaruqa ay tageen meeshii oo lasii hagaajiyay. Waxay tiri maadaama inaan soo soconno la ogaa, waa loo sii diyaar garoobay, waana maxaabiistii dhanna meesha waa laga waday, waana lasii nadiifiyey. Haddaba waa tan xildhibaan Ilhaan Cumar oo markii ay ka soo baxday kadib warbaahinta la hadashay kana warbixinaysa waxyaabihii ay ku soo aragtay bildigaas dhismahaasi federaalka ah oo ciidamada ICE ay maamulaan oo dadka markii la qabto lagu xirayay inta aan loo qaadin gobolada kale. Ilhaan Cumar waxay tiri This was an attempt at us doing our congressional duty and performing oversight at the Whipple Federal Building. We were finally let in. We were given a full and complete tour of the facility, and you know the objective of this oversight was always to be able to come in at any moment to see what is taking place at these detention facilities and how people are being treated. When they instituted the 1-week notice, we knew that things were going to be different. And we weren't surprised at what we saw today. We went into the facility and there was not a single detainee that we could see or talk to. Every cell, every inch of it was completely empty. And when we'd asked, why isn't there anyone here? Because we obviously know they've been detaining people. They said the last people left at 11:30. It seems a little too convenient, knowing that our scheduled visit was going to be at 12 p.m., that the last detainees would be transported out of the facility at 11:30. We've been told that on average, as the search has been drawn down, they are getting about 20 a day detainees that they are picking up. The facilities seem to be clean and orderly. And again, you know, I wouldn't be surprised with having the level of notification that we were supposed to give about our arrival, that things were arranged in that way. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.